السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا وإدين سلامي مع البأدوني كجوكتان هذا مكي كورس أجنال كيسو بوقنا فترة سبسكرايب إيسار هور هذا اللي جوكتاكم مع سنتا ما تحسمي دونا بسكوت كي عيد وعلى وكيل وبسكوت أسي فضود أي أسمي دونا إن شاء الله كفايدة يسوحن sida u jeeda meeshan waxa ku haysanaa alaabti aka sameey lehen waa kiilo sokor ah 2 kiilo oo bur ah 10 xabo oo ukun ah ani subag isliid oo isku darsanaa litir waa in ku noqoto isku darkooda qaada bakin qaada carfisa ah iyo nus qaada heelshiin inta ay ka sameeyna koo wax isdhex gali doona waa ukunta iyo sokorta mashiinka ay qasaya marka dhalaasho isdhex gasho kadibna saliida iyo subaga ku darsan doona kadibna burka ay ku darsan doona aad u fududahay wallahi summa wallah banka qiyaama buu nabi maxamed leeyahay calanka ma hada maalinta ana hayo ana li hoos jooga waa maalinta khalqigu ciirciiraya aadan bay u tagayaan noo shafaacad qaad dhibtan ana inigu wacan buu leeyahay jannadii dambigaan galaad kaga soo baxdeen anigu ma lihi ordo qeyrkay u taga ergada anu maanta ma lihi nuux bay u tagayaan nuux waxa uu leeyahay adduunka dusheedii anigu ducadaydii waa aniga ummadeeda ku habaaray ducadeyda maanta la aqbali maaye ibraahim al-khaliil u taga ibraahim baa loo imanaya saddex beeman adduunyada ku sheegay tii lagu qabtaan ka baqayaaye ordo qeyrkay u taga muusa loo imanaya muusana wuxuu leeyahay anu qof bini aadan dilay buu leeyahay ciisa ibn maryam baa loo iman ciisa cudurdaar sheegan maayo laakiin wuxuu leeyahay anigu ma lihi maanta markaasuu nabi maxamed uu yiri ana la iman doona banka qiyaama yawm al-jam'i la rayba fihi yawm at-taghabun يومئذ تعرضون إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا maalinkaas weyn maalinta dhibaatadu ay taalo maalinkaas nabi maxamed loo tagi uu leeyahay ana laha ka ducadiisa la aqbalaya waa aniga ka baryadiisa la aqbalaya waa aniga ka shafaacadiisa la aqbalaya waa aniga xadiidka nabigeenu waa kiilaha nabi kasti ilaahay adduunyada dusheeda duca la aqbala ilaahay siiyay nabi walba ducadiisii adduunyadu ku soo isticmaalay aniguna ducadeydii maalinka qiyaamahan khalqiga u dhigtaan ku anfici doona buu rasuulku yiri maalinkaas nabi maxamed in xasuusanaya inaguna maanta sunnihiisa baan ilowday. If you want success in this life, if you want to do something good for your akhirah and dunya, take care of your parents, respect them, love them for the sake of Allah, be close to them because Allah advised you to do so. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. The Sahabi asked, who deserves my companionship in this life? My wife, my cousin, my friend, my father? Who? He said, your mother. Then he said, then who? He said, your mother. He said, then who? He said, your mother. 3 times. Then who? He said, your father. Some of the Sahaba said, when your mother died, 2 doors closes in your face. The door of her dua to you and one of the doors of Jannah that you could enter through her. When the Sahabi came and he told him about his mother, he says, be at her feet, that's where... And sisters in Islam, whenever you pray your prayers, your obligatory prayers, as soon as you finish from the 5 daily obligatory prayers, there are adhkar to be said, and they are 6. I want to demonstrate with you how simple this would be. As you're sitting, the first thing you'll say after you conclude the prayer, Astaghfirullah, 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 3 times. And the better version is to say Astaghfirullah wa atubu ilayh, Astaghfirullah wa atubu ilayh, Astaghfirullah wa atubu ilayh. That's the first one. The second one you'll say Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Then the third one would be to say لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Then the fourth one would be لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. That's the fourth one. Then the fifth one would be the Subhanallah and Alhamdulillah and Allahu Akbar. And the way you do it, the minimum is to say it 10 times each. So you'll say Subhanallah, Walhamdulillah, Wallahu Akbar. ugu dambeyn sidan qurux badan ayuu kusoo baxay. labadii sano ayaan u samaystay nuucan dhaadheerka iyo nuuca kalo. hadda ilaa inta video soo gaarto waa kaaga mahadcelinahay. fadlan hadduu ku cajabay like iyo saar daaqad comment kala soo wadaag, asxaabtaada la sii wadaag. ramadaan wuu dhamaaday. taqabbana allahu minna wa minkum saalix al-acmaal. ilaahay soonkan soo geysa cimri iyo caafimaad hanuu gaarsiiyo. ilaahay kuwii naarta lagu xureey ha noogu daro. ciidul mubaarak. salaamullaahi calaykum.